بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii wararka maanta qodobada aan idin kugu haynana waxa kamida maalintii toddobaad ayuu galay dagaalka u dhaxeeya Iran oo Xisbullah kaashanaysa iyo Israa'iil iyo Mareykanka oo isgarabsanaya waxaana socda duqeymo la isweydaarsanayo xilli jihada colaadan ay u weecad doonto ay dowdahay Iran ayaa saacadihii la soo dhaafay bilowday adeegsiga hub halis ah oo wax ka bedeli kara natiijada iska horimaadyadaan haddaba maxay yihiin saddexda aaladaha dagaal ee Iran ay bilowday inay ku kordhiso colaadan ay kula jirto Israa'iil iyo Mareykanka warbixin arrimahan ku aadan ayaan idinkugu haynaa qaybta dambe ee barnaamijka wararka kalena waxa kamid ah waa mid kamid ah masaajidada ugu waaweyn Iran oo kumanyaal qof isugu soo baxeen salaadii jimcaha ee maanta xilli Mareykanka iyo Israa'iil duqeymo ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi taas bedelkeedii maalintii toddobaad malaayiin Israa'iiliin ayaa ku hoos jira godadka gabaadka looga galo gantaalada wiil uu dhalay wasiirka mayalka adag ee maaliyadda ee Israa'iil iyo askar kale oo waxyeelo loogu geystay iska horimaad ka dhacay xadka Lubnaan Trump oo dalbaday in Iran ay shuruud la'aan isku dhiibto hadalkiisa ayaa ku soo aadaya iyadoo Iran duqeymihii ugu xoogganaa ay ku hayso saldhigyada iyo danaha Mareykanka ee khaliijka iyo gudaha Israa'iil Jarmalka oo ka digay in sii socoshada dagaalkan halis uu gelinayo Israa'iil ayna tahay in la joojiyo madaxweynaha Iran oo xaqiijiyay in dalal badan la soo xiriireen si colaadan loo dimeeyo wuxuuna cadeeyay mowqifkooda dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta dhawaada markale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka maanta waxaynu ku bilaabaynaa warar culus oo dhanka Iran ka soo baxaya taliska ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa sheegay in gantaaladooda cusub maanta ay ku dhaceen saldhigyada Mareykanka ee ku yaal dalalka khaliijka ciidanka loo yaqaano IRGC ayaa sheegay in weeraradoodan ay ku adeegsadeen gantaalka Khorramshaar 4 oo wata madaxyo qarax oo miisaankoodu uu yahay ilaa iyo 2 tan taasi oo qayb ka ah ballaarinta iyo kordhinta weerarada waxaan intaasi ay ku dareen in gantaaladan jiilka cusub ay ku dhaceen saldhigyada Mareykanka ee dalalka khaliijka garoonka dayuuradaha Ben Gurion ee Israa'iil iyo magaalooyinka Haifa iyo Tel Aviv ciidamada IRGC waxay sheegeen inay u dhaqaaqayaan haatan ballaarinta dagaalka iyagoo adeegsanaya dagaallo ay ku tilmaameen iyo gantaalo ay sheegeen inay yihiin kuwa si toos ah u beegsanaya Mareykanka iyo sida lagu yiri bayaanka Sahyuuniyadda waxay kaloo ay sheegeen inay gacanta ku hayaan go'aaminta dagaalka ciidanka ayaa sidoo kale sheegaya in ay rideen tiro badan oo gantaalo ay ku jiraan Khorramshaar 4 Khaybar iyo Fatah ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa sheegay in mawjadii 22aad ee weeraradooda ay ku beegsadeen danaha Mareykanka ee gobolka iyo goobo ku yaal Israa'iil iyagoo sheegaya in weeraradii maanta ay ahaayeen argosiga iskuulka ku yaal magaalada Minab halkaasi oo lagu dilay Sabtidii 165 gabdhood oo iskuulka arday ka ahaa afayeenka xarunta militariga ee Khatimul Anbiya ee dalka Iran ayaa sheegay in markab shidaal oo Mareykanku leeyahay lagu beegsaday meel u dhow xeebaha Kuwait isagoo xaqiijiyay in markabka dab uu ka kacay wakaaladda wararka Faris ee laga leeyahay Iran ayaa sheegtay in sidoo kale nidaamyada difaaca hawada ay soo rideen diyaaradda nooca Hermes 900 ah oo ku sugnayd gobolka Khuzestan ee koonfurta Iran dhinaca kale waaxda amniga gudaha Israa'iil ayaa sheegtay in seeriga digniinta ka bixiya gantaalada laga maqlay goobo ku yaala koonfurta Israa'iil isla wararkan wasaaradda caafimaadka Israa'iil ayaa sheegtay in 2328 Israa'iiliin in laga daadgureeyay guryahoodii tan iyo bilowgii dagaalka
iyagoo sheegaya dadkan in kala bar laga daadgureeyey Talaabiib xagga bariga dhexe. ciidamada Iiraan ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen saldhigyada Mareykanka ee Kuwait iyagoo adeegsaday tiro badan oo diyaarado aan duuliyan lahayn ee droniska. waxaana intaasi ay ku dareen in weeraro kale ay dib ka bilaabi doonaan saacadaha soo socda. ciidanka Israa'iil ayaa dhankooda sheegay in ku dhawaad 50 diyaaradaha dagaalka ay ka qayb qaateen burburinta dhufays dhulka hoostiisa oo ku yaal sida ay sheegeen dhul buuraley ah oo Iiraan ah, halkaasi oo xarun uu ku lahaa hogaamiyihii la dilay ee Iiraan Ali Khamenei, isla markaasna ay ahayd xaruntaasi xarun dhexe oo adeegsan jiray. waa intaasi ay ku dareen in xaruntaasi la duqeeyey ay ahayd goob amarada laga bixin jiray oo ku fidsan wadooyin dhulka hoostiisa ah. warbaahinta Iiraan ayaa sheegaysa in magaalada Ilam ee galbeedka dalka iyo 3 goobood oo ku yaala magaalada Qom ee koonfurta Tehran duqeymo Israa'iil iyo Mareykanku ay la beegsadeen. xagga Washington, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaysan jiri doonin wax heshiis ah oo lala gaaro Iiraan marka laga reebo sida hadalka u dhigay inay isdhiibto shuruud la'aan. qoraal uu ku daabacay baraha bulshada ayuu ku sheegay in Iiraan ay u baahan tahay sida hadalka u yiri hoggaan cusub oo ku tilmaamay mid la aqbali karo, isagoo hoosta ka xariiqay in Mareykanka iyo xulafadiisu ay ka caawin doonaan Iiraan inay soo kabato. laakiin iyadoo hadalkan uu ka jawaabayo, ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in Trump uusan xitaa magacaabi karin duqa magaalada New York uuna doonayo in uu gacan ka geysto ama lug ku yeesho cidda hogaaminaysa Iiraan. haddaba aynu dhegaysanno wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan oo ku jeesjeesaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. la yaab ayuu ku tilmaamay hadallada ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan in isagoo si toos ah uu ugu lug yeelan doono magacaabista hogaamiyaha sare ee cusub ee Iiraan. wararka kale aynu ku sii soconnay, ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in diyaarad daroor ah ay ku qarxiyeen xarun dhanka mukhaabaraadka oo ku tal aaga Surdash ee ah gobolka Kurdistan ee waddanka Ciraaq. ila amni oo Ciraaqiyiin ah ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera in magaalada shidaalka caanka ku ah ee Al Buraysiya ee gobolka Basra ee koonfurta Ciraaq lagu beegsaday daroon. isla eelawareedka ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Basra sidoo kale daroon lagu weeraray. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay ila amni oo Ciraaqiyiin ah oo sheegaya in 2 diyaaradood oo daroon ah lagu weeraray saldhig Mareykanka uu ku leeyahay oo ku yaal agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Erbil ee gobolka Kurdistan ee Ciraaq. xagga Imaaraadka Carabta, wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in ay burburiyeen 9 gantaal oo nooca balastiga ah, isla markaasna ay qabteen 109 diyaaradaha droniska, waxaana ay sheegeen in 3 ka mid ah lagu soo riday dhulka dalkaasi. telefishinka Al Jazeera ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa in qaraxyo laga maqlayo waqooyiga Kuwait, waxaana la sheegayaa in taasi ay sababtay in gebi ahaanba Kuwait ay ku dhawaaqdo joojinta shidaalkii ay soo saari jirtay. wararka Iiraan haddaynu dib ugu laabanno, madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in qaar ka mid ah dalalka gobolku ay bilaabeen iyo kuwo kale oo caalami ah dadaalo dhexdhexaadin ah, isla markaasna Iiraan ay u sheegeen in loo baahan yahay in ay nabad qaadato. wuxuu sheegay in Iiraan aysan weligeed ka labalabayn doonin inay isdifaacdo gaar ahaan sharafta iyo madaxbannaanida dalka. wuxuu sidoo kale sheegay in dhexdhexaadiyaashu ay la hadleen, laakiin wuxuu yiri waxaa loo baahan yahay kuwa xaaladda heerkan gaarsiiyey in iyagu ay qaataan mas'uuliyadda. dhanka Israa'iil haddii aynu eegno, afayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay inay bilaabeen mawjad cusub oo duqeymo ah oo lagu beegsanayo kaabayaasha nidaamka waxa ugu yeeray argagixiso ee Tahraan iyo Isfahaan. wuxuu sheegay inay ku dhufteen in ka badan 500 oo bartilmaameed oo ku yaala Lubnaan taliya markii Xisbullah dagaalka ay ku soo biirtay. ciidanka Israa'iil waxay sidoo kale sheegeen inay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan bartilmaameedyada Iiraan, isla markaasna ay burburinayaan awoodeeda sida hadalka ay u dhigeen. waa intaasi ay ku dareen in weerarada xarumaha dhulka hoostiisa ee nidaamka Iiraan ay haatan noqon doonaan natiijada dagaalka. afayeen u hadlay ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in nidaamka Iiraan weli awood u leeyahay inuu qaado weeraro, isla markaasna la sheegayo
in la ambaqaadi doono weeraro toos ah oo ka dhan ah Iiraan. Israa'iil waxay qiratay 3 askari oo maanta kaga dhaawacmay dagaallo ay la galeen Xisbullah. laakiin war ka duwan warkan, telefishinka kanaal 15 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa tabiyey in cisbitaalka Nahriya la keenay 8 dhaawac ah oo Israa'iiliyiin ah, kuwaasi oo xaaladooda ay culus tahay kadib markay ku dhaawacmeen dagaalada ka socda waqooyiga Israa'iil iyo koonfurta Lubnaan. war kale oo arrimahan ay la xiriira, raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa xaqiijiyey in wiil uu dhalay wasiirka maaliyadda ee Israa'iil Bezalel Smotrich iyo askar kale ay ku dhaawacmeen hawlgal military oo ka dhacay xadka Lubnaan. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in wiilka Smotrich oo ka mid ahaa guutada Jafati ee ciidamada Israa'iil ayna ku dhaawacmeen askartaasi oo wiilkaasi uu ku jiro koonfurta waddankaasi ee Lubnaan. wahagaag haddaba wararka ugu dambeeya haddii aynu eegno, shidaalka waxa leeyahay imika waa qaariyoobay. fuustada shidaalka hadda waxay maraysaa baa la yidhi $90. waxaa kaloo soo baxay war degdega hadda soo dhacaya, waxaa leeyahay ciidanka Maraykanka ayaa waxay isku dayeen inay gelbiyaan maraakiib ka gudbi lahayd gacanka Hormuz, laakiin hadda Iiraan waxay sheegaysaa in mid ka mid ah maraakiibtaasi la beegsaday oo la duqeeyey. wararka kale hadda soo dhacaya waxaa ka mid ah, waxaa la sheegayaa in Washington Post waxay qoraysaa, waa wargeys ka soo baxa waddanka Maraykanka, in saraakiil Maraykan ah ay aaminsan yihiin in Ruushka uu siinayo Iiraan macluumaadyo dhanka sirdoonka ah, gaar ahaan goobaha ay ku sugan yihiin maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Israa'iil ee Maraykanku uu leeyahay. waxaa la sheegayaa markaasi Ruushku inuu ka caawinayo Iiraan xogta la xiriirta meelaha ay ku sugan yihiin maraakiibta diyaaradaha dagaalka xambaara ee Maraykanka. Ruushku warkan ilaa hadda kama uusan jawaabin, wixii ku soo kordha waynu arki doonaa. waa hagaag haddaba dagaalkan maantay galay maalintiisii 7aad. arrimaha la yaab kale waxa weeyaan, iyadoo la duqeynayo magaalooyinka waaweyn ee waddanka Iiraan ayaa maalintii koowaad ee jimcihii geerida hogaamiyihii Iiraan Cali Khamenei waxaa isku soo baxay 100,000 oo qof. meelo kala duwan ayaana dadkan borordiiq ay ka samaynayaan. masaajidada iyadoo duqeyntu ay socoto ayaa la soo dhabtay. bal muuqaalkan aynu yara daawan. marka waxaa leeyahay arrinta la yaab kale waxay noqotay dadkan aan cabsanayn. dhinaca kale waxaa leeyahay waxaa laga bilaabay gudaha waddanka Iiraan qorshe abaabul ah bacdamaa laga cabsi qabo in dagaalkan ay ku soo biiraan kooxaha Kurdiyiinta. arrintaasi oo laga cabsi qabo in markaa ay suurtagal ka dhigan karto waqooyiga waddanka Ciraaq inay ka soo gudbaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta, lagana cabsi qabo dagaalada inay ku fidaan dhanka galbeed ee waddankaasi Iiraan. waxaan u gudbaynaa goordhow xubintii falaqaynta oo aan idinkugu hayno 3 hub oo cusub oo Iiraan dagaalka ay ku soo biiraysa saacadihii la soo dhaafay. Jarmalka oo leh dagaalkan haddii aan la joojin halis ayuu gelinayaa Israa'iil. wararka dhanka diblomaasiyadda ee la xiriira colaaddan ka aloosan bariga dhexe haddii aynu jalleecno, ra'iisul wasaaraha waddanka Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in mowqifkooda ku aadan dagaalkan uu cad yahay, isagoo ku tilmaamay mid qaanuunka ka baxsan iyo khalad weyn. isla markaasna wuxuu sheegay in ay bixin doonaan qiimo culus kuwa bilaabay dagaalka. xagga Jarmalka, ra'iisul wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz ayaa sheegay in sii socoshada dagaalkan uu halis gelinayo amniga Israa'iil iyo xulafada gobolka, gaar ahaan dalalka Khaliijka. wuxuu sheegay in sii socoshada dagaalkan aysan dan ugu jirin, isla markaasna ay ka digayaan khatarta ku wajahan madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Iiraan. wuxuu intaasi ku daray in burburka dowladda Iiraan ama in dhulkeeda uu isku bedeli karo goob dagaallo wakiilaha oo cawaaqib xun uu ku yeelan doono dalalka Yurub. sidoo kale wuxuu sheegay in burbur kasta oo ka dhaca Iiraan uu halis gelin doono amniga shidaalka Yurub, isla markaasna uu sababi doono tahriib aan la xakameyn karin. dhanka Faransiiska, wasiirka gaadiidka ee Faransiiska ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in 50 markab oo Faransiisku ay leeyihiin ay ku xaniban yihiin biyaha Khaliijka, halka 8 kalena ay ku xaniban yihiin badda Cas. xagga Azerbaijan, magaalada Baku ee caasimadda ah, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Azerbaijan Ceyhun Bayramov ayaa sheegay in dalkiisa uu kala baxayo diblomaasiyiintiisa Iiraan sabab la xiriira ammaankooda. go'aankan ayaa yimid
maalin kadib markii Baku ay sheegtay in 4 daroon oo Iiraan ay leedahay ay ka soo gudbeen xadka dalkaasi isla markaasna ay dhaawaceen 4 qof oo ku sugnaa gobolka Nakhchivan. Bayramov waxa uu sheegay in Azerbaijan ay daadgoreynayso shaqaalaha safaaradeeda Dhahran iyo qunsuliyadaheeda guud ee magaalada Tabriz ee Iiraan. Iiraan waxay si adag u beenisay inay ka dambeysay weerarkaasi diyaaradda droniska ah ama diyaaradaha dronka lagu adeegsaday. haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falaqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khibrada arrimaha militariga, istiraatiijiyadda dagaalka iyo ciidamada. sidoo kale xubintan waxaynu ku gorfaynaa waxyaabaha warbaahintu ay daabacdo ama ay baahiso. waxaan si gaar ah xubintan maanta ugu eegaynaa hub casriya oo wax ka bedeli kara natiijada dagaalka oo Iiraan ay la soo baxday. haddaba maxay yihiin saddexdaasi hub oo hadda cusub oo Iiraan ay la soo baxday? 24 saac ee la soo dhaafay Iiraan waxay ku biirisay 3 nooc oo hubkeeda ah qadka hore ee dagaalka ay kula jirto Mareykanka iyo Israa'iil, taas oo ah horumar muuqda oo ay wax kaga bedelayso istiraatiijiyadda iyo itijaaha dagaalkan uu u socdo. sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ila Israa'iiliyiina. saacadihii la soo dhaafay warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC ay adeegsadeen gantaalka Khorramshahr 4, diyaaradda cusub ee isqarxisa ee Xadiid 110 iyo sidoo kale doonyo miinooyin ama qaraxyo ku rakaban yihiin oo meel fog laga hagayo si ay u beegsadaan maraakiibta shidaalka qaada ee ku sugan biyaha khaliijka. gantaalka Khorramshahr ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa Khamiistii shalay ahayd waxay xaqiijiyeen in sawaariikhda Khorramshahr 4 ay ku garaaceen garoonka diyaaradaha Ben Gurion iyo saldhigga ciidamada cirka Israa'iil ee lambar 27, iyagoo sheegay in ay markaasi si toos ah u cadaabeen cadowga sida lagu yiri bayaan ay soo saareen. ciidanka ayaa xusay in gantaaladaasi ay ka gudbeen 7 lakab oo nidaamyada difaaca hawada ah oo ku yaal sida bayaanka lagu yiri dhulka la haysto. Khorramshahr 4 waa jiilka ugu dambeeya ee gantaalka balastiga ee loo yaqaan Khorramshahr. noocyadii ugu horeeyay ee Dhahran waxay soo bandhigtay 2017 kadibna jiilkan afraad ee la isticmaalay hadda waxa la shaaciyay bishii May 2023. gantaalkan wuxuu gaari karaa masaafo gaaraysa 2000 oo kiiloomitir, dhererkiisu waa 13 mitir, xawaaraha uu ku socdaana 16 goor ayuu ka dheereeyaa codkiisa markuu ka baxsan yahay jawiga. markuu jawiga ku jirana 8 goor ayuu ka dheereeyaa codkiisa. waxaa ku xiran madaxyo qarxa oo culeyskoodu u dhan yahay 1500 oo kiilo oo garaam. diyaaradda Xadiid 110. horumar kale, wakaaladda wararka Faris ee Iiraan laga leeyahay ayaa xaqiijisay in ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan Khamiistii markii ugu horeysay ay adeegsadeen diyaaradda ismiidaamisay ee Xadiid 110, taas oo ah diyaaraddii ugu horeysay ee Iiraan ee matoor jet leh oo xawaaraheedu yahay 517 kiiloomitir saacadii. waxaana loo arkaa tan ugu dheeraysa noocan ee ku jirtay kaydka hubka Iiraan, taas oo siinaysa awood sare oo ay kaga gudubto bartilmaameedyada ka hor inta aysan ogaan nidaamyada digniinta hore bixiya. Dhahran waxay markii ugu horeysay diyaaraddan ay shaacisay 12 bishii February ee aynu ka soo gudubnay ee 2025. diyaaraddan sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Dalaho, waxaana la sheegay inay ku qalabaysan tahay madax qarxa oo culeyskiisu uu yahay qiyaastii 30 kiilogaraam, iyadoo ay weheliyaan farsamo casri ah oo ka hortag ah. doonyaha miinooyinka ku raran yihiin ee isqarxiya. qiimeyn horodhac ah oo ay sameeyaan 2 ilo wareed oo ka tirsan amniga dekedaha Ciraaq ayaa muujiyay in dooni miinooyin ay ku raran yihiin ay Iiraan ku dhufatay iyadoo la adeegsanayo hanaanka meelaha fog laga hago. markab shidaalka ceeriin qaada oo Namibia laga leeyahay oo lagu magacaabo Sanangol, kaasi oo ku gooshayay calanka Bahamas xilli uu ku sugnaa biyaha waddanka Ciraaq. 2 ilo wareed ayaa sheegay in doonta ay isku qarxisay markabka iyadoo docda ka gashay, taasi oo noqotay weerarkii ugu horeeyay ee la diiwaan geliyo gudaha aagga dhaqaalaha gaarka ee Ciraaq tan iyo markii Mareykanka iyo Israa'iil ay bilaabeen weerarka ka dhanka Iiraan 28 bishii February.
ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in ay beegsadeen markab shidaal oo Mareykanku uu leeyahay oo ku sugnaa waqooyiga khaliijka taasi oo la sheegayo in ay ka dhalatay dab inuu ka kaca markabka tilaabo muujinaysa ballaarinta weerarada dhanka badda ee labada dhinac tani subaxnimadii sabtida Israa'iil iyo Mareykanku waxay wadaan dagaal ka dhan ah Iiraan Israa'iil dagaalkan waxay ugu magac dartay guuxa liibaha Mareykanku waxay ugu yeereen carada weyn kaas oo lagu dilay hogaamiyihii sare ee Iiraan Cali Khamenei iyo saraakiil kale oo amni iyo kuwa military waxaa kaloo la sheegay in dhanka Iiraan ay kaga jawaabtay hawlgal loogu magac daray ballanqaadka dhabta ah dufcadda afaraad Israa'iil iyo Mareykanku waxay sheegayaan in weeraradoodu ay beegsanayaan qaab dhismeedka military iyo amni ee ciidamada IRGC wakaaladda wararka Reuters ayaa soo xigatay laba ilo wareed oo arrimahan la socda oo sheegaya in dagaalku uu galay wejigiisii labaad kaas oo Israa'iil diiradda ay saarayso weerarada xagga gataalada ee Iiraan iyo meelaha laga soo rido gataaladaasi kuwaasi oo la sheegay qaarkood inay yihiin dhulka hoostooda Iiraan dhankeeda waxay sheegtay inay bilaabayso weji cusub oo dagaalka isla markaasna iyagu ay gacanta ku hayaan natiijada dagaalkan iyo sida uu ku dhamaanayo waa tahay haddaba waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka waa barnaamijka wararka maanta waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgeli